يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشا شرفت مدة يهبط من الداودية متر برودكشن channel waxaan maanta ku soo kulminay channelkan caalamiga mtr production channel barnaamij ku magacaabay ila taariikh barnaamijkaasi oo ku saabsan bishan barakaad Ramadaan inta lagu jiro aan ku qalanqayn doono qofka shakhsiyadiisa iyo hamigiisa waxyaalaha hortaagan iyo waxa ku habboon ama waxa laga doonayo inuu qabto iyo inuu moraalkiisa dhisto iyo waxyaalo badan oo ku saabsan nolosha si aad meel sare ugu gaari lahayd. barnaamijkan waxa uu ka bixi doonaa halkan waxa uu ka bixi doonaa si maalinle ah waxaana barnaamijkan kaaba geliyay oo la suurageliyay dhacdo Allah subhanahu wa ta'ala kadib bangiga caalamiga ee Premier Bank waxaana isku soo dawraday channelka caalamiga mtr production waxaana ka daawan doontaan maalin walba saacadu markay tahay 5 galabnimo geeska Afrika. barnaamij aad muhiim ah waxaan ku soo qaadan doonaa dad badan oo caan ah dad badan oo la yaqaan dunidan caanka ah ay noloshooda meesha ay ka soo bilaabeen from zero to up meesha ay gaareen meesha noloshooda sida ay uga soo dagaalameen imise jeer ayay soo dhaceen imise jeer ayay soo fail garoobeen imise jeer ayay isku dayay inay nolosha si tartiib ah ay u soo gaaraan meesha ay sanadeen maanta ay joogaan. ayaan hadal ugu daal barnaamijka wuxuu noqon doonaa barnaamij aad ka wadaagi doontaan fadlan sheekareeya asxaabtiina iyo walaalahiina kale la wadaaga waana waa mtr production barnaamijka soo jeedinayo. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh. waxaanu maanta barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa aktarka caanka ee lagu magacaabo Morgan Freeman. sababta dad badani ay ku aaminsan yihiin fikir khaldan guusha waa iyagoo arka natiijada ugu dambaysa ee shaqo adag uu qofkaasi sababtay isla markaana u maleeyaan inay ahayd wax nasiib ah. weliba maqashay sheekada la yiraahdo Morgan Freeman. haddii aad wax badan daawato filimada Hollywoodka waxaa laga yaabaa inaad og tahay inuu ka mid yahay aktarada Hollywoodka loogu tixgelinta badan yahay ee ku guuleystay marar badan filimada loo yaqaan Oscar Prize-ka. taasi waxa ay dhab ahaan ka yaqaanaan dadka aktarka ah balse wax fikrad ah ma ka haysataa halganka uu soo maray aktarka caalamiga ee Morgan Freeman ka hor inta uusan ku aktar aan noqon oo uusan ku guuleysan una guulo waaweyn ka gaarin shirkadda caalamiga ee Hollywoodka. haddaba sheekada Morgan Freeman ayaan maanta idin hayaa. Morgan Freeman waxa uu ku dhashay dalka Mareykanka taariikhdu markay ahayd 1937 waqtigaasi oo ku beegnaa waqtigii midabta koorka lagu hayay dadka madowga ah oo aad u xoogan iyadoo ay ugu wacan tahay dhibaatadan iyo cadaadiskan midabta koorka qoyskiisa waxa ay go'aansadeen inay ka guuraan meesha ay dhibaatada ka jirto inay u guuraan meel kale si ay u helaan nolol ka fiican tan iminka ay ku jiraan. Morgan wuxuu jeclaa inuu noqdo aktar lacagtiisa iyo waqtigiisa inta ugu badanna waxa uu ku bixin jiray si uu u daawado aflaamta. marar badan waxa uu isku dayay inuu noqdo aktar balse kuma guuleysan. waqti aad u dheer kadib wuxuu isku arkay isagoo duuliye ah inuu noqon karo nin aktar ah. waqti kadib Morgan wuxuu xaqiiqsaday inuu mihniyada ahaan ama mihniyada dhabta ah uu jecel yahay inay tahay aktarnimada. waxaana uu go'aansaday inuu daba socdo aanu ka harin sidii uu aktar u noqon lahaa. Morgan da'diisu waxay gaadhay 45 jir isagoon aan weli waxba guul ah gaarin. laakiin miyuu niyad jabi wuxuu sii wadaa isku daygiisaba wuxuu ku guuleystay markii da'diisu ahayd 50 jir ilaa uu kama dambaystii matalay filimada caanka. markay da'diisu noqotay 67 jir Morgan Freeman wuxuu ku guuleystay biladda aflaamta kadib
jilidiisii loo wada bogay ee filimka la magac baxay Millions Dollar Baby. haddaba casharada laga baran karo noloshii Morgan Freeman maxay tahay? kow, waxaad u malaynaysaa inaad ka habsaantay xilligaad riyooyinkaaga eryan lahayd. wuxuu guul ku gaaray markay da'diisu noqotay 67 sano jir. ma u malaynaysaa inaad ka da'weyn tahay? Morgan Freeman wuxuu bilaabay inuu ku guulaysto markii da'diisu noqotay 50 jir. haddii aad u jeelan tahay oo aad jeceshahay inaad ku guulaysato, wax weli waqti waad haysataa. ma nasiib baa mise waa adkaysi nolosha uu soo maray iyo dulqaadka uu soo maray Morgan Freeman? qofka si uu u gaaro waa inuu la kulmaa guuldooyin badan. Morgan Freeman wuxuu ku guuldaraystay marar badan ilaa ay da'diisu ay ka gaadhay 40 jir, isagoo aan weli wax guul ah gaarin. balse maadaama uu ahaa qof aad u adkaysi badan, wuxuu u maareeyay inuu ku guulaysto riyadiisii markuu ahaa 50 jir. dhinaca kale, arrintani nasiib ma aha, mana qusayso wax nasiib ah, balse laakiin waa ku celcelin badan ilaa aad ka gaadhayso waxa aad rabto. raac oo ka shaqee waxaad jeceshahay. kuma guulaysan kartid shay haddii aanad jeclayn, balse dhab ahaan waxaad noqon doontaa mid aad ugu dhow ama aad ugu fudud inaad ku guulaysato waxaad jeceshahay. marka loo barbardhigo ku guulaysiga waxa aad neceb tahay, hel waxaad jeceshahay inaad qabato oo raac. haddii aad saa samayso, fursadaha noloshaada guulaysiga ah waxay noqonaysaa mid aad u heersareeya. haddaba waxaanu kuu qaadanaynaa barnaamijkani ama aanu kaga faa'iidaysanaynaa in badan aad dadaal bixisaa ama noloshaada waxyaala ama shay aad ku celcelisaa ay shaygaasi noqon doonto waxaad mirihiisa aad ka dhalisa aadna ka gaarto guntii ugu dambaysa nolosha aad ka rabtay. haddaba barnaamijkani waxaa soo diyaariyay iskula soo dawladay bangiga caalamiga ee Premier Bank. fadlan subscribe, share, like, comment intada. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. waxaan rajaynaynaa barnaamijkaasi aad ka hesheen. wixii tala iyo tusaalaha waxaad noogu reebi kartaan xaggan hoose ee commentska, waxyaalaha u baahan in laga bedelo, waxyaalaha ay tahay in lagu beeriyo iyo waxa ka qaldan barnaamijkan. fadlan ra'yigiina waa muhiim. waxaana aan rajaynayaa in barnaamijkani uu sida lagu talagalay u socon doono. waa aniga liibaan maxamed cabdullaahi soo daadiyaha barnaamijkan. waxaa kaleeto barnaamijkan taabageliyay aan ka ilaaminay Premier Bank, bangiga caalamiga ah. fadlan subscribe, share, like and comment. waxaan ka ilaaminaa aad baad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ramadaan kariim.